السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعن وناكسن دلهان تيم باخيارتا دا قيمة هي شرفتا مدن ومركلة برامج كيني فانك اي فنانين تتضبات كان وحا مرتي انوغوا أبوانا دو قاليا مرنا فنان إسلام مركاسنا برنامج كان فانك اي فنانين تا انو كمرتقادني وأحمد آذن محمد وكما قعدير إيش على وحاو كالسعودة كوحدة شرربان إيكا أساسا حارونتا قبل كشرر إيه مقالة دقاحبور أو وطمق عقود إيه قبل كاسي شرر أو ليلهدو شرربان وأبوان كوحدة سي شرربان أهنا فنان مركاسي كدح موغدا سوغانتا هيساها إيه كالدوان إيه مركاسي كوحدة سي كلو غيسو مركور وانكوكو سو دوينيا ESTV إناد قرب كيغا سو فريستو أدنو وانكو فرحسانا هاي سو دو أدي أكبر ما صنتي هبون سودوميتا سودويتين يوقتي عزيزين بأدي أكبر نقوم هالعلنيات دمان وحوي ورباهين تا ESTV إيو وحوي أن أديك هبونا كارهان أدي أكبر نقوم هالعلنيات. إن أكبر ما صنتي وحتى هاي إن أبوان كوحدة شرربان فنان نوات هاي مركزها سها إن أتسميسون حدا نكون لقاية وهسا مركز أديكيو إن كوحدة دو أدو داقيسان. bal markaa waxaan jeclaan lahaa kooxdan yaa lahaa asaaskeedii yaa markaasi kaalin muhiim ka geystay in kooxdan la mideeyo oo la asaaso oo ay noqdaan koox ku saleysan ka shaqaynta dhinaca wacyigelinta bulshada ee gobolkaasi Jarareed haboonahay kooxdan waxa la asaasay muddo waxay asaasan tahay si fiican oo asaasan tahay sanada waxa kooxda asaasay ama isku soo dubariday waa gudoomiyaha gobolka Jarar mudane Maxamed Xasan Suufi ayaa kooxda asaasay gacan weyn ka geystay heerka ay marayso in ay maanta soo gaadhana cid la oran karo sabab ay u ahayd waa waxa weeye gudoomiyaha gobolka Jarar ahna maayirka maamulka magaalada Dhagaxbuur mudane Maxamed Xasan Suufi ayaa asaasay marka waxa uu ahaa asaasay kooxdaasi ayaa isaga gacan ka geystay oo dhinaca in kooxda la mideeyo oo ay noqdaan koox dhinaca dhiirigelinta bulshada ka shaqeysa isaga marka kaalin muhiim ka ciyaaray baan leenahay gudoomiyaha gobolka Jarar aad baad mahadsantahay baan leenahay oo kaaga mahadcelinayna aan ka soo noqono kadib markii fikirkii uu maamulku idin siiyay aad ku midowdeen suugaantii ugu horeysay aad curiso ee ay kooxdu qaado erayadii kugu horeeyay curiso adigoo fankii ku cusub isla markaasna kooxdii aad ka mid ka ahayd ay qaadaan waxaa kulli maaragtay kooxda wax aan sameeyo kooxda iguma horeynin ilaa muddo la oran karo hadda waxay ahayd trisgeena Ethiopia ilaa 2000 iyo waxa weeye shantii laga soo bilaabo wax waan sameyn jiray balse laakiin wixii ugu horeeyay ee aan oran karo waxaan u dhiibay kooxda Jarareed ay qaado wuxuu ahaa xilliga adu sanadka muddo sanadka 2000 iyo 10ka bilowgiisii abay ahayd wixii ugu horeeyayna wuxuu ahaa aan ku bilownay waxa weeye heeso wadani ah oo mataqaanay muwaadinimo far badan ay ka dhex muuqato ayaan ku bilownay ma sha Allah hees waxa jirta aan ugu talagalnay barnaamijka sidoo kale heesaha toddobaadkan aad ku hawlanaydeen ama muddooyinkan ba ee barnaamijkan aad martida ku tahay aad ugu talagasheen bulshada dhamaantood waa heeso badan maxaa la yiraahdaa daawasho waana heeso cusub marka heeso waxa jirta qorshahan imka xukuumaddu ay qaadatay ee la rabo in dadka danyarta noloshooda lagu kobciyo barnaamijka dejintana ay uga faa'iideystaan baabaco bal qorshahaas ayaad heeska curisay bal heestaasan jeclaan lahaa wax kamid ah inaad naga faahfaahiso heestaas waa hees baabaca la yiraahdo magaceeda waxa weeye qorsho aad u wanaagsan oo waxa weeye la oran karo dadka danyarta ah ayaa wax loogu qabtay ay waxa weeye xukuumaddu qaadatay oo ku saabsan oo mataqaanay si xoog leh loo xoojinayay sanadkii ka sanadkan gabagabada 2011 qorshihii noocaas ah ayaa wanaag laga gaaray kolkan aragnay yaa waxay u soo dhacday in aan hees ka sameeyo heesta kadib aan mataqaanay kooxdu ay qaado heesta baabaca la yiraahdo erayadeedu kulli heestu waxa weeye wax qabad fara badan oo xukuumadda ah ay sheegaysaa waxayna cadeynaysaa kooxdu hadalka ay ku hadlayso inuuna been ahayn waxa weeye buunbuunin ahayn balse laakiin uu yahay wax qabadka xukuumadda oo waxa weeye buunbuuninana aan lagu darin wax beenana aan lagu darin xaqiiqada jirta sax kolka been sheegi meeno buunbuunin meeno horumarkeena boodee baaxadiisu weyn tahayaan bogaadinayna baylaatire xisbiga iyagu bulshadii dhibneed shalay birmadku u galay baan wax yar soo bandhigaynaa adigu erayadaas ay ku bilaabantaa erayadaada curiyay
naaxiyadana erayada iyo laxanka labadaba adiga marka waxaad isleedahay waa erayada iyo naaxiyada waxa aad kula jaan qaadon kooxdaadan cusub ee Jararbaan aad iyo aad dhinaca muusikada waa macalinka deegaanka macalimiinta wacdada waa Cabdi Raabib ma sha Allah macalinka macalimiinta Cabdi Raabib aad buu mahadsan yahay kulli muuqaalka iyo qaybta edit-kuna wax weeyaan Maxamed Xasan Faarax ma sha Allah waxa weeye mataqaanay soo saaritaanka kooxda ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay bal muuqaalkaas aan idin kala baxo maamulkeena bilan baa
bulshadeen tilmaamo dalkeeni fidabo ceelka laga qoday biyo ka yimid baa intay buura dhacdheen bannaan iyo xidhiyo kayn la sii mariyey balad badan la butaacshay welibana yay bankii xaguugiyo danood beesha taala ka balxani balxaniyoy balxani ka balxani biyaa tagay ceelka laga qoday biyo ka yimid baa intay buura dhacdheen bannaan iyo xidhiyo kayn la sii mariyey balad badan la butaacshay welibana yay bankii xaguugiyo danood beesha taala ka balxani balxaniyoy balxani ka balxani biyaa tagay muuqaalkaas intaasaan kaga nimaado heestaasi kulley waxyaabo fara badan bay ka hadlaysaa oo dhinaca nolosha bulshada ee ay xukuumadda iyo xisbigu wax ka qabteen waana hees run ahaantii aada u qiimo badan aanu soo noqono shayga la yidhaahdo abwaanimadu ma dhib yara godadka laftirkooga laga duulaya ee marka hees la curinayana hawl sahlan maaha bal markaa yaa ku hogal tusaaleeyey oo iskugu kaa dubariday in erayadooda ay noqdaan kuwa isku dheeli tiran كلي وحويان أبو النمد وح متقناي لبرتما عادي أو وح كستا برشولية عادي أبو النمد وح لبرتما هو أولش وح متقناي هو إله الروح سوية صح كل كا وحوي وح أنا إسكو أركيون إنا وحويان وإسكو دبردويان بس لكن وح أنا أرن كرام متقناي هو تصالح من كهلا أما متقناي كلمة من كهلا أنا أرن كرام صح إن أدبض ما تصنته مركل إيجو إن هي صحة
gabayada maansada ama jiifta ama noocay doona ha noqoto way kala duwan yihiin godkaad isleedahay in aad erey ka samayso way kugu adagta ama tidcan ha noqoto ama isku furan ha noqoto waa godkee كل والله ما رتي منصدو وقيبة بدنتا منصدو نوعي فر بدن ويلاه بس لكن أفكار الصومالية السجنتي صرنا وحا أبو أما أجهري وجبيها صح وحوي منصدة ومنصدة لفتي لا يبلا أما متقنا قيبة فر بدن وسكلا بحر صح بس لكن جبيها يسووا هالمدا وحا أقوم مجوين وجبيها كل كان منصدة وحا أنا كتش علىها أما أنكو بالله بكل أجهري سجبيها صح aan suganteeda ku bilaabay kolka qaybta aan aad u xoojiyo ama aan aadka waxa weeyaan had iyo jeer aan uga hadlo waa xagga gabayada maansada waxa weeyaan waa raabka dambe igu jirta qaybta dambe aad baad u mahadsantahay marba haddii aad gabay samayso maansadiina waad samayn kartaa baan aaminsanahay taabaqaad waxay ka mid tahay heesihiina aad adigu curisay bal taabaqaad maxay ka turjumaysaa taabaqaad waxay ka turjumaysaa taabaqaad sida magaceedaba ku cad waa wax macnaha waxa la oran karo hirgale ama taabaqaaday ama noloshiisu waxa weeye marka ay isku daba dhacday sax heestu waxay ka hadlaysaa deegaanka Soomaalida Itoobiya macnaha waxa weeye heerka uu gaaray ama sida waxa weeye uu gacmaha isu qabsaday iyo waxa weeye sida uu hore ugu dhaqaaqay hore ha u dhaqaaqay haddana waxa weeyaan mataqaanay cid kasta oo waxa weeye horumarkiina xawliga ku dhaqaaqay inay caqabad u keento isku dayda macnaha sidii waxa weeye in oo waxay naga dhaxayaa de mataqaanay tariisin u yahay صح asiyaduna cadeynaysa erayada adaare erayada iyo laxiyada waa anigu muusikadu waa macalinka ugaaska waa Belle Cabdi Ismaaciil Axmed Belle aad baad u mahadsan tahay bal mar kalena muuqaalka kooxda Jararban oo toddobaadkan iyagu inoogu talagalay dhinaca muuqaalo iyo heeso muddaba ay ka soo shaqeynayeen jeclaysta inay bulshadooda la wadaagaan waa kane naga hanta Isaga
matashiishe iyo taajiraan tabaalay sanataa kulaynayn eldornaadba laga tagay ninka taagan weliye tacamooda reebel iyo tuuga baase taran taran kanaxeedka mooti ku faaraxa iyo shaxata maan tagay moogtahay todoba ruux wata mooti socoto ma tirsada xisbigayagu matashiishe iyo taajiraan tabaalay sanataa kulaynayn eldornaadba laga tagay ninka taagan weliye tacamooda reebel iyo tuuga baase taran taran kanaxeedka mooti ku faaraxa iyo shaxata maan tagay tuuliya degmiya gobol mashaariicda toganka lacagta u timideen danta ku tayaynta sidii loogu talagalay ninkaan toosu fulinayn ee ku toogaysta keligii wax ma tare mas-uuliyadda noo tiri taladiya xilkaba keen ayaan toosu leenahay tuuliya degmiya gobol mashaariicda toganka lacagta u timidee danta ku tayaynta sidii loogu talagalay ninkaan toosu fulinayn ee ku toogaysta keligii wax ma tare mas-uuliyadda noo tiri taladiya xilkaba keen ayaan toosu leenahay isku tiirsanaantiyo tawfiiqu waamuus wixii naga tabnaa shalay ayaa maanta noo togan rutiga ku taalo isku ku horaan ku tallaabsanayna isku tiirsanaantiyo tawfiiqu waamuus wixii naga tabnaa shalay ayaa maanta noo togan rutiga ku taalo isku ku horaan ku tallaabsanayna rutiga ku taalo isku ku horaan ku tallaabsanayna rutiga ku taalo isku ku horaan ku tallaabsanayna aan usoo noqon kooxda Jareerbaan waa koox la oran karo waa koox dhisan oo dhameystiran marka muuqaaladiina la arko qaabka aad u wadaan suugaantiina maasha Allah dadaalkiina si wadaan idin leh dhanka ma jirtaa haday noqon lahayd erayada abwaan kale oo ama naaxiyadeysta kale oo idinka caawiya dhinacan way jiraan abwaana kale oo kooxda way jiraan abwaan saaxiibkay oo waxa weeye Mustafa Ahmed Xuseen oo abwaan baadiyo magac dheer baa jira saaxiibkay way jiraan kolka abwaana kale oo iyaguna heesaha iga garab sameeyo oo waxa weeye kooxda iyaguna si weyn gacan weyn ka geystay ayaa iyaguna jira صح kolka way la xameystayaal kuma badna kooxda balse laakiin waxa weeye abwaana kale waan haynaa kooxda aad baad maadsantahay heesiinu saad sheegtay wuxuu badan yihiin dhinaca wacyigelinta bulshada awr kiraale waxay ka mid tahay heesaha aad noogu tala gasheen ee muuqaalada cusub aad muddooyinkan ku hawlaneedeen sameeytooda bal heestaasna ififaala yar naga sii awr kiraale waxa weeye iyadana waa hees ka mid ah heesaha cusub heeso dhammaan way wada cusub yihiin balse laakiin waxa weeye awr kiraale waxa weeye mataqaanaa nin waxay ka hadlaysaa dadkiisii iyo dalkiisii waxa weeye nin shisheeye ahi mataqaanaa u soo dirayo oo lagu leeyahay mataqaanaa dalkaaga iyo dadkaaga waxa weeyaan soo carqaladeen oo soo dhibaatay kadib hadalkii shisheeyaha inta soo qaatay waxa weeye dadkiisii iyo dalkiisii macnaha dhibaato inuu keeno tamacsan ay la hadlaysaa oo ay leedahay macnaha aqli gaabka liitee garashadu abaadee ambado xaqiiqday afa ku qaado awr xidhiidh furtaa tahay awr xidhiidh furtaa tahay naxiyaduna waa isla adiga bal kooxda Jareerbaan waa muuqaalo qurux badan run ahaantii muusikadaasi aadka u
quruxda badan ayaa tumay muusikadu waxa weeye iyaduna waa macalinka ama ugaaska waa isaguna waa Cabdi Ismaaciil Axmed Beele ما شاء الله عبد اسماعيل احمد بيل انا ادبن سلامينا ان ابوانka kooxda naaxiyadeystaha oo isagu eesh calaa ma sha Allah magac qurux badan uu wataa ayaa garabkayga fadhiyo isagu barnaamijkan toddobaadkan martii inoogu ah bal muuqaalkaasi awr kraalana aynu wada daawano waxaan u necbahay waa awrkiroolayaasha cadaa uu adeegsadee ubadgiina layo arligiina horumaray olan sudha la yidhi aqbal yidhi odhaahdii balse waxaan u sheegaynaa haddaan nahay ururka dhalinteedo ifka waxaan u necbahay waa awrkiroolayaasha cadaa uu adeegsadee ubadgiina layo arligiina horumaray olan sudha la yidhi aqbal yidhi odhaahdii balse waxaan u sheegaynaa haddaan nahay ururka dhalinteedo aqligabka liitee garashadu abaadee ambadow xaqeedeed aafaa ku qado awr xidhiir furtaa tahay aqligabka liitee garashadu abaadee ambadow xaqeedeed aafaa ku qado awr xidhiir furtaa tahay aragti xumow shisheeyuhu intiiyu ku adeegsanaye uduubiyo hangol tahay xaajadaadu waa eber
aan ka soo noqono magacii lagu bixiyo waa Axmed ايش على mar hadii qofkaas waxaas maqlay oo ereygaas kugu soo dhaco ايش على wuxuu la mid yahay sheeko dhameystiran iyo hawl isku dubadhacda iyo wax qurux badan yaa ku bixiyay ايش على كلي magaca ايش على waxa weey waa erey Soomaalidu isticmaasho oo waxa weey mataqaanay inta badan wanaag loo isticmaalo wixii laga helo waxa weey ereyga ايش على kolka hore ana halayso laha kadib ana halayso waxa waa ايش على baan oran jiray waxa dhacday in aan wixii igu horeeyay ee aan la xameeyo dhantay ee aan la xansaaro erayadeeda waxa macnaha meel aan kolka ku sugnaa ayaan ka qaadi jiray waxa erayadeeda kamid ahaa macnaha dhulkeena qaybo kamid ah amaanaysi dhul iftiimayo bila adag laho udug iyo udgoon astaan looga dhigay waa awaaro ikhyaar ايش على ku nool اختيار ايش عليا كنا هي kamid ahaayeen kadib markii waxa weey aan la xameeyeen la xasaaray waxa weey aan tunayba loo oran jiray war ايش على dhantadii ايش على nooqa kadib magacaygu noqday ايش على iyo ايش على nooqa halkii waxa weey xaga madaxu kaaga baxay in aad baad mahadsantahay lug dhaqaaqday ya soo qabanay talo lug dhaqaaqday ana soo qabanay waxa weey waa hees aad igu qaaliya ana xagga qiimo badan bay ka taagantay waxa weeye lug dhaqaaqday waxa weeye waxay tiraahdaa erayadeeda kamid ah DDSI soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan laba dhibic ku horo lama farq la bixiyo wax loo yaabaan hay oo DDSI soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan waxa weeye erayadan iyo laxanka ana sameeyay waxa weeye hees ka hadlaysa iyaduna tabaqaadka deegaanka ka hadlaysa muusikadu waxa weeye macalinka soo Cabdiyara aad baan salaamayna Cabdiyara Habib iyo heestaasi quruxda badan fanaaniinta qaadaya ee lug dhaqaaqday DDSI waa hees ay ugu tala galeen fanaaniintu daawasho wacan Let me be cool.
dhidhiyasaay soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan labidhe alla labidhe dhibic ku horo lama faraq waa bixiyo uba lulaya waanahay dhidhiyasaay soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan labacna maaha oo laba uma qaybsama leebkiyo warmaha baas kuwi nala dul taagnaa jabiye 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 low yahay ka shabiye ciidankeena limiside laagiya jariya qow kama leexanaya labacna maaha oo laba uma qaybsana leebkiyo warmaha baas kuwi nala dul taagnaa jabiye 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 low yahay ka shabiye xaba shacabku layntii laba saddex ka goodi beentii lugta lahay waxaan laabta dhaafayn liqoo laba cantuugtii u ballaqayadeedii maanta waan ka lano ragal iiqsanayn iyo new bolis goortii deegaankeenu layyaday ee lalalagamaye uba laba dib loo xidhay yuu ku lalay dadkii nabaad xaba shacabku layntii laba saddex ka goodi beentii lugta lahay waxaan laabta dhaafayn liqoo laba cantuugtii u ballaqayadeedii maanta waan ka lano ragal iiqsanayn iyo new bolis goortii deegaankeenu layyaday ee lalalagamaye uba laba dib loo xidhay yuu ku lalay dadkii nabaad labidhe alla labidhe dhibic ku horo lama faraq waa bixiyo uba lulaya waanahay dhidhiyasaay soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan labidhe alla labidhe dhibic ku horo lama faraq waa bixiyo uba lulaya waanahay dhidhiyasaay soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan labidhe alla labidhe dhibic ku horo lama faraq waa bixiyo uba lulaya waanahay dhidhiyasaay soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan dhidhiyasaay soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan dhidhiyasaay soo laaban mayso lug dhaqaaqday weeyaan labidhe alla labidhe intaasaan kaga nimaadno waxaa jirta gabay aada ugu tala gashay taariikhda dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya bal intaan heesaha ka yaranasano dhinaca gabayga aynu galno gabayga waxaa la yidhaahdaa sooyaalkii
taariikheed ee DDSI buu ka hadlaya sooyaalkii taariikheed ee DDSI kulli sooyaalka taariikheed uma soo taagnin oo uma soo wada joogin balse laakiin qaybo badan ayaa waxa weeye la iga sheekeeyay ama mataqaanaa xog fara badan aan ku helay kadib kolkaan sooyaalkii taariikheed ee deegaanka soo maray hadda wuxuu ku sugan yahay wixii jira wixii laga soo baxay iyo waliba meesha aan higsanayn intiiba kolkaan xog ku helay ayaa waxa igu soo xadirtay in aan ka sameeyo gabay aan ka tiriyo waxa weeye abwaan hadda tahayna dalkaaga iyo dadkaaga inaad wax garbaxdo oo wax kasta oo waxa weeye mataqaanaa aad dadka bulshada dheerta inaad soo jeediso aad u fiican tahay kolka gabaygaas waxa la yiraahdaa taariikhda DDSI wuxuu ka hadlaa sooyaalkii taariikheed ee deegaanka sax maxaa kamid ah markaa gabaygaas wuxuu yiraahdaa haddaad damacdo tawsada leh iyo gabay inaad turto taargeed inaad haysataa waa waxaan tegina haddaan nahay tan DDSI ayaa tallaabsanaysa taariikhdii deegaanka ee toban madoobaatay wixii tegay timaadada dambiye ahaata waxa taagan ayaan tuduc ka soo qaadanoo soo tabantabina ee maqlaay tabtaan shalay ahayn baan tibaxsanee warintii odayda oo taagabo yara tabaalaysan tan ciroole weyn oo cimriye oo tukuba haysta la tudaan tudiyay ee burweyn lagu tamuujiyay intii hooyo urtaran bulshadu ay shintirinayso oo toddoba ayaa uga hadhiyo toban la qowla ayo tuuriyana dhaho aanagiin dubta lagu dhaafi intii tiirin oo kacay barbar turqiye waaweyn leh taraysi rasaas lagu taxay eelka lagu tuuray intii inaan xaraga tuurayso timaha sii daysay lagu tacaduday laga tuntay tooga lagu gaaray intii maanta taag daran qalbiga laga tantoomay intii culimada taajkiya taqaanqarada tawjiidka oo duftoodu tahay caafimaad lagu tanaadayo intii tigirka loo jaray qabriga ciidna lagu tuulay timahaaga madaxiya ka badan tira la qiimeeyo tomaatida warmaha la isla dhacay digsi ku xanjeerka tamuujada xadhaafka cadida taarta goynaysa tixdaa iyo tiraabteena hore say tusinahayso bal hadeer ma taagnina had ma laga tanaasulay tabti tiica oo kale waxa laga tanaasulay tashi wadar ah oo loo dhan yahay taajir iyo liite marka aanu isu wada tagnay meel isu wada taagni ee aynu toobiyaha xisbiga talada u dhibnay isaguna tixgelin aad u badan shacabka taabsiiyey ee uu tashuushka iyo kuwii taarka nagu geegashay kuwii toonba nagu nuugay toominkana haystay kuwii tooraha bulshada toosu gelinayay markii uu tababaray xisbiga ciidamada taagan liyu boolis taatiqan markuu tuman ku sii daayay rag taraysa dhonyada markuu tooska u abaaray ee sida tikraar qoryaha albac lagu dirshay ubadii la kala tuuray ee laba meel taalay markaas la tiray oo xuntii la iska wada tuuray sameeyna lagu toosay tubta wacan qaadnay dadkii taqajarra oo ka imararta ahay ee tamuuxda fadhiisan jiray tara abaareedka xisbiga intuu toos u dayay oo tashaday maalin 10,000 oo mayl oo taagna qoday ciida biyo lagu tamaamana mar kale toonba kaga keenay togagii rugmani jiray markuu dhibci tacshiirayo ee tooska nagu dhaaf jiray laguna taameenin injineer tagay ayaa tabiya xeel keenay oo inaan la xidho togaga badi keenay taladiisa xisbigana taafliyo taqajarkii reeb xisbi tubta kala tirada caafimaad taaganta ay haata way tagto tan iyo dhowr kun bay taabanaysaa dawaa tuulan oo shacabku wada tanaada tuulada istaagtaba doctor taagan baa jira tacab iyo waxan beeranaa tuure iyo hawsi tufaax iyo cambiya leen ayaa turuqya laalaada oo marashadu dhulkay to xataan tacab ku beeraa waa tukale agoontii ilmadu ka tafqanahaysay ee la toogtay ee waalidkooda xaabal laga tuulay xisbiga ka tirayo ilmadii taa ka shaafi oo u tiriyay lacag oo intuu kiishashka u tuulay hoy lagu tixgeliyay aqoonta fataran taalo xisbiga agoontii tubo taajira yiri kuwii toogta naga raacay bari talo xumuun gaaray ee toobad keenay iyagu tubta waxaan qaatay xisbiga intuu tacabariga tiknikada geeyay oo tababar weyn loo qabto garasho loo tuulay oo tiknoolajiyada iyo bartaan shaqada u taala ayay horumarka taabgalay toos u hagayaan waxa kale iyana talamadan waa say tahay dadkeena qurbaha tagay Turkiga Toronto iyo China xisbiga tibaax rushay oo tan isoo keenay toddobaadna shir u yeelay oo talo wax weydiiyay iyaguna kulkaasi tageen tuulo iyo kaamba oo tulkoodna soo wada arkeen rabbigu taageeri abaartii taraarkii ah tan iyo xal dhaafka abaartana tii xurub lehelin laba sano taama abaartii tan geeska Afrika aan ka tagin meel tabalash abaartaan ahayn cudur ratiifeynay abaartii tafxiidkii ah nin iyo taagtiisa abaartii tamootida badnay tagayay maalkeen ee tul iyo qaraabiye xiga la istabi waayay dadkeenii tabaalaysanaa tabar aan haynin waxa taakuleen xoog la bido taagan garabkiisa teer dhaxaadka shacabkeena iyo xisbiga iyo taanad taajirka iyo raxmaanka qura laga helaa taana waan talaabsanay aadamo taa la ogaado tagnayo anagu soconay taa la ogaado tab quraan wada qaadanay taa la ogaado isku tiirsanaan baa jirtay taa la ogaado wixii naga tabnaaba toganay taa la ogaado oo tawfiiq ayaan leenahay taa la ogaado ma sha Allah warna hantii gabay aad u qiimo badan waan kaaga mahad celinayaa wiil dhalinyaro in xigmadaasi curiyana aad baan ugu faraxsanahay waad ku mahadsan tahay baan ku leeyahay aanu soo noqono heestii xisbigeenu ma ogola waa hees aad u qaaliya aadna run ahaantii daawashadeedu dadku ay u jecel yihiin oon aniguba ka mid ah bal heestaasan jeclaan lahaa inaad fiifaala naga siiso heestaas xisbigeenu ma ogola waxa weeye
waa hees ka mid ah heesaha wacyigelinta ee kooxda jarar baan ay ku hawlan tahay صح kooxda jarar baana miisaankeedu waxa weeye mataqaanaa dadku waxyaabo fara badan oo kala gedisan bay ka hadlaan laakiin bilowgii ama waxa weeye mataqaanaa kolkii ugu horeysayba waxay kooxda ku bilowday waa xagga wadaniga iyo waxa weeye wacyigelinta bulshada waxa soo dhan hadda waxa la oran karaa mataqaanaa fanka inaad waxa weeye maadaama aad fan tahay in aad dalkaaga iyo dadkaaga aad ka hadasho aad bay macnaha ay muhiim u tahay صح heestan erayadii laxanka ana sameeyay waxa ku luuqanaysa waa isla kooxda jarar baan oo aad iyo aad aan u salaamayo dhamaan ugu horeeyo gudoomiyaha kooxda deeq muqtaar waxa weeyaan heestu waxay tiraahdaa kulli wax fara badan bay ka soo hadlaysaa wax qabada xisbigeenu ma ogola dhowr xaala ma ogola xuquuqdii dadweynaha nin xabaala ma ogola nin xamaaqa baasoo xiro ooda ma ogola nin xil wadoo mas-uulo xaraaroonna ma ogola xaajo kalena waatan xisbigeenu ma ogola xaasid iyo namiim iyo xagjir iyo dulsaarnimo xisbigeenu ma ogola xisbigeenu ma ogola xoolo cirdoonna ma ogola xisbigeenu ma ogola qof been ku xamaasho ma ogola qof been shaqo ka dhigta ma ogola ma sha Allah aad ma tantahay in muusikada yaa ka caawiye muusikadu waa xawi Ilyas Xasan Faarax aad iyo aad baan u salaamaya maalinka Ilyas Xasan Faarax adigoo erayada iyo naaxiyada iyo kooxda jarar baan guud ahaan aad baan u salaamayna muuqaalkaasna daawasho wahan تغريني حقنا كما مريني حقيقة وحيداي حسبي أنا صوّده حلري وحنان عند شعبي تلك أبيها نوسيدو حكمتي تغريني حقنا كما مريني حقيقة وحيداي حسبي أنا صوّده حلري وحنان عند شعبي تلك أبيها نوسيدو وحصر له وكحاول يديو راكسني حقوقي حتى ليس استيعين ندان ليس استيعين محاحة وبربرشو حسني نسمى فلي وحصر له وكحاول يديو راكسني حقوقي حما لما ولاغضو لما حور سمحي بالحصوص تقاطيا حلي يدي لسومري هري لالنتينيو حبنا برلمانيو حلي بانا ميجين حما لما ولاغضو لما حور سمحي بالحصوص تقاطيا حلي يدي لسومري هري لالنتينيو حبنا برلمانيو حلي بانا ميجين حقيقة وحيتاي حقيقة وحيتاي حلكاس كامني سوغي حديقة ليوغيو حسبينا وياه حقيقة وحيتاي حقيقة وحيتاي حلكاس كامني سوغي حديقة ليوغيو حسبينا وياه
abaartii xumaatee caddhaaftee xanuunkiyo lahayd xiisada badan dadkay xoolo dhaafeen xanuunkana digtooraa caaladay ku sugayeen xilli u daaweyn xilli u daaweyn abaartii xumaatee caddhaaftee xanuunkiyo lahayd xiisada badan dadkay xoolo dhaafeen xanuunkana digtooraa xaaladay ku sugayeen xilli u daaweyn xilli u daaweyn mishiinka xareeju xisbigeenu keeno waa lagu xagaabacay mishiinka xareeju xisbigeenu keeno waa lagu xagaabacay xisbigeenan dimuqraadiga shacabka soomaalida itoobiya dhowr xaalo ma ogola xuquuqdii dadweyna nin xabaala ma ogola nin xamaaqa baaso xera ooda ma ogola nin xilwado mas-uulo xaraarona ma ogola xisbigeenu ma ogola xoolacirdoona ma ogola xisbigeenan dimuqraadiga shacabka soomaalida itoobiya dhowr xaalo ma ogola xuquuqdii dadweyna nin xabaala ma ogola nin xamaaqa baaso xera ooda ma ogola nin xilwado mas-uulo xaraarona ma ogola xisbigeenu ma ogola xoolacirdoona ma ogola xaajo kalena waatane xisbigeenu ma ogola xasidiya namiimiyo xagjiriya dulsaarnimo xisbigeenu ma ogola xisbigeenu ma ogola qof been ku xamaasha ma ogola xaajo kalena waatane xisbigeenu ma ogola xasidiya namiimiyo xagjiriya dulsaarnimo xisbigeenu ma ogola xisbigeenu ma ogola qof been ku xamaasha ma ogola xisbigeenu ma ogola xoolacirdoona ma ogola xisbigeenu ma ogola xoolacirdoona ma ogola xoolacirdoona ma ogola xoolacirdoona ma ogola muuqaalkaas xisbigeenu ma ogola iyo kooxda jararbaan aad baan ugu mahad celinaynaa intaasna aynu kaga soo noqono axmed aadan waad mahadsantahay walaal marka hore marka xigta waxaan ku siinayaa maadaama gabagabada iyo gunaanidka barnaamijkeena taagannahay anuu kaaga mahad celinaya habsamida iyo sida fiican ee barnaamijka aad markaasi noogula socodsiinaysa iyo sidaad uga qayb qaadatay kaalmaha suugaanta iyo weliba gabayga aad ugu talagashay DDSI anoo mahad guud kaa siinaya waxaan jeclaysan lahaa inaan fursad ku siiyo kooxdaada iyo dadkii ku gaarkaad ku salaanto أنا فرصة إنك فائدة waxaan aad u salaamayaa dhammaan xubnaha xisbiga waxa weeye
dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku sugan iyo waliba mataqaanay dalka dibadiisa kuwa ku sugan waxa weeye ka baxsan dalkeena aad iyo aad baan u salaamayaa dhamaan xubnaha xisbiga waxa kaloon aad u salaamayaa dhalinyarada kacankiiyo ee Gaamuri ee waxa weeyaan deegaankeena Soomaalida ee la oran karo mataqaanay laf dhabarta deegaanka weeyaan aad iyo aad baan xubnaha heega maashaAllah aad u salaamayaa aad iyo aad waxa kaloon si gaar ah u salaamayaa waa kooxdayda anna garbahayga waa Jarar Bandi maashaAllah aad iyo aad baan u salaamayaa habli iyo wiilba waxaan leeyahay ay farqudanahay aad iyo aad sax aad baad u mahadsan tahay Axmed Aadan Maxamed ee shacala oo barnaamijka toddobaadkan marti ugu ahaa kana socday Jarar Band kooxda ka asaasan magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolkaasi Jarareed waxaan jeclaan lahaa inaan intaasi barnaamijkan ku soo gabagabayno waan kaaga mahad celinayaa qaabka fiican ee barnaamijka markaas uga qayb gashay waxaan u mahad celinayaa habeeyaasha barnaamijka farsamo yaqaanada oo aan marnaba la ilaawi karin doorka iyo kaalinta ay ka qaateen ha ugu horeeyo farsamo yaqaan Axmed Mahdi Muuse iyo waliba Asad Yaasiin Xuseen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa habeeyaha guud ee barnaamijka Ilyas Ibrahim Cali iyo barnaamijkan oo isaguna qayb weyn ka qaatay Cabdi Ciise waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dhammaantiin inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doonaan waxaan idinkaga tagaynaa amaana Allah